sidaad og tahayba hurbad laba si ayaa wax looga bartaa midda koowaad waa e-learning midda labaadna waa diploma haddaan ku hormarno e-learningka qofka ardayga waxaa looga baahan yahay inuu website-ka booqdo in uu asagu koorsada uu rabo iska diiwaangeliyo kadib koorsadu markay u furmato akaunkiisa usoo gasho inuu nafta ka adag yaho oo asagu isbari karo inuu nafta ka adag yaho asagu isdhiirageli karo inuu nafta ka adag yaho waqtigiisa maamulan karo ogow koorsada e-learning marka ay tahay macalinka saxaya waxa la wixii ciladaho kugu soo baxa ama su'aalo weydii kartid ma jiraan haddii aad rabto qof la garab qabanaya aad tahay oo gadaal laga riixayo oo lala xisaabtamayo haddaad jeceshahay inaa saas wax ku barato diblomada ayaan kuu diyaarinaa diblomada marka waxaa la socdabaa waxay tahay horta koorsooyinka dhan baa hal mar kugu wada furmaya kadib waxaa la socdabaa waxay tahay waa macalinkii oo ku hagayo ku dhahaya koorsooyinka sidaan iskugu aadi macalinkii oo su'aal kasta weydiin kartid macalinkii oo aad cilad haday kugu soo baxdo kaa saxaya iyo haddii wax mugdi jiraan ama wax haddaad fahmi weyso kale kuugu celinaya ilaa iyo inta adigu aad ka fahanto marka ogaaw diblomada waa 1-to-1 waa adiga iyo macalinka kaliya maahan group inta lagu dhex daro aad ku wareeraysid maaha iyo dad kala sareeya maahan ama dad kala horeeyay maaha qof waliba goonidiisa ayaa waqti loo siinaya marka maahan dad inta lagu dhex daro lagu dhahayo adigu groupka ka mid noqo oo su'aashii aan soo weydiisan un kaaga jawaabayna marka aan rabno maahan saas waxa weeye 1-to-1 waqti baa lagu gelinaya waqtiga inuu adigana sidaas kaaga soo baxo weeyaan balse ogaaw sharcigaasuna wuxuu ku dabaqmaa diblomooyinka hurbad ka baxo oo dhan ayuu ku dabaqmaa waxaa jira ilaa iyo hadirtaan 6 diblomo oo hadda diyaar ah ayaa jirta haddaan aniga adigu hadirtaan website-ka aan isla booqano waxaa arkaysaabaa waxay tahay website-ka waxay markaa hoos u dhacdo in diblomooyinkiiba aa arkaysid midda koowaadu waa web design midda labaad waa graphic design midda saddexaadu waa digital marketing midda afraadu waa system administration midda shanaadu waa network administration midda lixaad oo hadda aan cashirkan uga hadlayno waa cyber security haddaan aniga adigu hadirtaan click aan iskula siino cyber security boggaan buu nageynaya soomaaliya oo dhan waxay uga dhigan tahay waa cyber security balse maaha wax sahla cyber security cilmi bilaawahoo qofka uu bilaaw ka bilaabi karo oo baran karo ma ahan cyber security ma ahan cilmi interpreted ah wax ku dhici kartid haddaad tuuganimo iyo iska dawareeg iyo qof la dhibaateeya haddaa u dal leedahay markii horeba cilmi ma aad rabin inaad barato marka waqti ha iska dhuminin hoos u soco marka waxaa arkaysaabaa waxay tahay learning formatka koorsadan inay tahay e-learning waxayna soconaysaabaa waxay tahay 10 bilood 6 bilood ma soconaysa koorsadan waa templateska aan isticmaalayna sida website templateska aan samaynay balse 10 bilood ayay soconaysaa koorsadan oo meeshan waa laga bedelayaa sidoo kale koorsadan lacagteedu waa $600 weeyaan haddii aad rabto waxaa ku bixi kartaabaa waxay tahay installment oo 300 waxaa u bixi kartaa 100 oo ilaa iyo 6 bilood soconaysa marka 6 month installment ayaad ku bixin kartaa ogaaw koorsadan 10 bilood oo accountability coaching la socda 10kaas bilood macallin ayaa garabka kaaga jira macallin ayaa ku daba taagan su'aalo ku weydiinaya koorso kasta oo dhamaysana su'aalo laga weydiinaya imtixaan lagaaga qaadaya aad ku baaseena haddaa ku baasi weyso waa ku celinaya ilaa intaa ku baasto ma ka gudbayso koorsadaas marka videogana hadda daawanaysidna meeshan ayuu soo geli doonaa oo wixii sharaxaad oo dheeraada tuulasha aad ku baran doontid ama xirfadaha aad ku baran doontid koorsadan waxaa ka mid ah waa koorsadan certified in cyber security combative security plus certified ethical hacking waxaa kaloo ku baranaya python cal linux metaexploit perpsuit open source intelligence ayaa ku baranaysaa powershell bash cli tuulal badanaa ku baranaysaa koorsadan oo hadirtaan lagu soo koobi karin laba line haddaad eegto marka waxaa lagaaga baahan yahabaa waxay tahay inaad horey usoo baratay ama aad horey usoo dhigatay diblomada system administrationka ama diblomada networkinga labadooda haddaad tiraahdo cilmi ugu filana aqaanaa labadooda waan ka bixi karaa imtixaankooda ayaa gelaysaa oo $100 dhiibe kadib diblomada sidaas imtixaankeeda ku baaseen haddii aad marka aad ku dhacdo ogaaw waxba taas kama samayn karno waxa lagaaga adaa naftaada been u sheegay waxa lagaaga baahan yahay inaad ku laabato system administration kadib aad networking kadib aad saas u wado cyber security sababtoo ah cyber security-gu waa sugidda amniga computer system oo systemkaasoo networkiisii wixiisii oo dhan u dhammaystiran yihiin haddii aadan asagii soo baran marka inaad amni sugto ama inaad ka hortagto wax alla wixii weeraro lagu soo qaadi lahaa networkan ama dhibaatooyin loo geysan lahaa nooca rabo ha ahaadaane ma aad samayn kartid marka waxaa loo baahan yahabaa waxay tahay inaad horta adigii aad horta tahay qof system administrator qof network administrator kadib ayaa amnigooda aad sugi kartaa laakiin ka hor ma sugi kartid adiga waa adigoo yiri waxaan rabaa guri inaan dhiso laakiin rinjigii aan ka bilaabo oo adigoo yiri darbi aan dhisnayn ma rinjiye kartid Soomaaliya hawada ma rinjiye kartid
so waa derbiyadii horta waa inaad dhisi kartaa waa inaad shamiitay kartaa waa inaad masixi kartaa kadib ayaad waxaad samayn kartaa waxay tahay wax la wixii rinjiyo oo dhan marka waa analogy hadirtan oo example ahaan aan kugu soo qaatay balse cyber security-gu maahan cilmi bilaawa waa cilmi dhammaad ah weeyaan qofka marka waxaa looga baahan yahay waxay tahay inuu wixii uu amnigooda sugayay horta waa inuu yaqaanaa markii aad soo barata marka intaas ayaa waxaa ka bilaabaysaa waxay tahay koorsada koowaad oo certified in cyber security waxaa ku xijinaysaa waxay tahay combat security plus oo ayadu ah 4 koorso ah marka 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 waa security plus kaliya waxaa ku xijinaysaa certified ethical hacking oo koorsadan ka bilaabanaysa ayaduna waa 6 koors waa 1 iyo 2 and 3 4 okay 5 6 weeyaan waa kana ka shanaad 6 weeyaan waxaa ku xijinaysaa waxay tahay Python waxaa ku xijinaysaa waxay tahay advanced Kali Linux ayaa ku xijinay ogaaw koorsadan ethical hacking iyo koorsadan security plus Kali Linux waa soo isticmaalaysa laakiin si advanced yaad u baranay Kali Linux kadib PowerShell iyo CLI iyo bash scripting kadib meta exploit ayaa specifically waxa u baranay frameworks ogaaw frameworksna ethical hacking kana waa ku soo baratay si loo isticmaalo laakiin si kale advanced yaa u sii baranay complete ah oo si kasta loo isticmaalo Pursuit sidoo kale waa ku soo baratay ethical hacking laakiin specifically asaga koorso gooni maadaama uu yahay tool aad iyo aad u awood badan ayaan ugu talagalay open source intelligence waxaa jira marka iyo toolal kale oo mustaqbalka aan ku soo dari doono koorsadan hadirtaan cyber security-ga waxaan oo dhan u khaas weeyaan waxa la wixii halkan ka hooseeya Kali Linux ka hadirtaan wixii ka hooseeya oo dhan waa u khaas dibloomada u khaas yihiin oo maaha public course loo gadan karo waxaan ugu talagalnaa waxay tahay maadaama koorsooyinkan ay yihiin koorsooyinka xirfadda qofka aad u siinaya xirfad dad waxaa jira rabaan inay xirfadda si qalad u isticmaalaan dadkaasaan hadda ku xanimaynaa inaysan u helin chance ay dadka ku dhibaateeyaan marka sida qofku markuu laakiin rabo inuu wax barto ay ka go'an tahay oo diblomadan oo hore kuwi kalena oo soo maray oo diblomadan raba inuu barto automatically toolashan oo waa uu helaya iyo sida loo isticmaalo oo course ahaan marka waxaan filayaa waxay tahay inaad noqon doontiin kuwa ka faa'iideysta haddaan kor u socono marka waa iska diiwaan geli kartaa coursadan oo waxa kali ku sii kartaa waxay tahay waa hal mar baad bixi kartaa hadaa rabto kaliya halkan ku sii kartaa ama boqol baad u bixi kartaa adeeg kugu xirantaa sida aad u rabto marka hal mar kaliya ku siiso wuxuu ku geenayaa bogan oo saa u jeedid product wuxuu ku geenayaa $600 hal mar bixi waxa ku bixi kartaa waa WafiPay waa eDahab waa waxa ku bixi kartaa waxay tahay waa credit card baa ku bixi kartaa waxa ku bixi kartaa waa PayPal adeeg kugu xirantahay marka sida aad rabto inaad ku bixiso oo ma ahan waxa anagu aan ku qoor qabanayno ku dhayno halkan si isticmaal okay hadaa marka aad gadaal u laabato hadeertaan waan ogahay inay salada iigu jirto waa aan ka bixi karaa salada oo close cancel baan iska dhigi karaa boqol ardadu way u jeceshaa inay u bixiyaan marka waxa sameyn kartaa waxay tahay 6 bilood ayaa ku bixi kartaa oo min $100 ilaa inta aad lacagta iska dhameynaysid marka waa payment plankas ayaa isticmaali kartaa detailskaaga waa buuxinaysaa waxa halkan ku qorayba waxay tahay ama waxa dooranaya mid aad rabto hadda inaad ku bixiso wax kadib sidaas baad u bixinaysaa lacagta oo sidaas baad iskaga diiwaan gelinaysaa marka waxaan rajaynayaa waxay tahay inaad noqotiin kuwa ka faa'iideysta inaad noqotiin oo diblomadan shuruudaheedana buuxiya noqdana hakariska ku salaysan anshax maahan kuwa akhlaaq xumada ah oo ciyalkan meelaha la soo dhumiyey inaad ka mid noqonin oo dadkan la wareeriyey oo hacking baa lagu baraya saan baa lagu sameynaya may hackingka saa u malaysiin maaha cyber security markii laga hadlayo hackingku waa qayb kamida weeyaan hackingna ma loogu talagelin dadka in lagu dhibaateeyo waxa loogu talagalay waxay tahay hacker hadaa maqasho magacaasa waxa la siiyay magac qalad baa la siiyay ama magac xun baa raacay maqli jirta hadal xun baa raacay maalin maqli jirta waxa dadku ay u maleeyaan hackeriska inay kuwa koofiyo wato mugdiyo oo qol mugdiyo fadhiya no hackeriska lagu sheegaa waa qof shaati cad wata oo caadiyo shaqo taga oo really hackerisku waa kuwaas maahan dadka tuugada waxa koofiyaha wata iyo waxaas waa tuug qofka tuuga ahna ama ha isticmaalo midiyaha soo qaato ama qore ha soo qaato ama computer ha soo qaato waa un xabado isticmaalo waa weapon u isticmaalo weaponkii rabta ha noqoto tuug waa tuug marka adigu kuma baranaysid sida wax loo dhibaateeyo sida dad muslim ahna marka inaan runta ka wada hadalnaa fiican ma ku baranaysid koorsadan wax si qof bil aadan loogu dhibaateeyo waa ku baranay cilmiga ay hackerisku ay leeyihiin oo kale laakiin anigu marnaba xataa ma sii sheegsho qofka markuu baranayo ogaadaa waxa uu ku baranayo laakiin cilmiga aad ku baranaysid meeshan maahan inaad qof ku tijaabsato maahan inaad qof ku dhibaatayso maahan inaad adiguna naftaada dhibaato ugu geysato ogaa qofka koowaad oo dhibaateynaysid waa naftaada sababtoo haddii lagu qabto wax illegal ah adoo sameynaya
waxaad mudanaysaaba waxay tahay xabsi tiro badan ayaa mudanaysa ama naftaada khalkhil gelaysa ogaaw marka intaasuna waa waanaba iga ahayd oo cyber security-gu inuusan ahayn wax ay dadku say u sheegayaan ama say dadka u dhigeen inuusan ahayn ayaan taasna idinkugu caddaynayay waxaana filayaa inaad ka faa'iidaysan doontiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh